بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن لما أصحاب تقيمة يقايها له اكو حران شبكة solarportal.com solarportal Facebook لايف يهدو ذين دافو مر والبا واحد كدا وان كرتان كلنا سعون كرتان يوتيوب كا solarportal إسلا مركانا سبسكرايب كدي كرتان سي ولا سعوتان wax walba oo idin dhaafa waxaan dhamaan idinka soo salaamaya maalintan arbacada ah caasimadda wadanka Kenya magaalada Nairobi barnaamijka waxaan idinka codsanayaa in aad ku dhufataan share-ka ama sii qaybisaan si asxaabta kale ee iminka online-ka ah ay ula socdaan isla markaana ay u daawadaan taban title-ka ama magaca hore waad arkaysaan waa kulankii ama la kulankii aan la qaatay mudane أحمد محمد إسلام أحمد مدوه كذا عي مجالة نيروبي رنتي ما هين ورئيسي أنا سمعي ما هين وحو أها كلن ومركي هوري وجوه رئيسي أنا سكوا ركنه أنا كوب قضيه هوتيل كيسة أنا صوص سلامي أنا إسأرقني وايو أحمد مدوه والشخصي very interesting هدي أهان لدنك جبلان سياسة الصومالي مركي وحي أباهان تهاي هدي هاي professional journalist إن هذا تكتيد كصور قادد أجل هذا الشان مركا مدة هالساعة أيان لسوقاتي si aan u ogaado iyadoo la og yahay markii ugu horeysay inuu yimaado magaalada Nairobi ee wadanka Kenya tan iyo intii la qabtay doorashooyinkii la isku haysay ee ka dhacay Jubaland oo markii dambe la yiri waxa ku guuleystay mudane Ahmed Madoobe marka hadalladu waxay ahaayeen isbarasho wuu yaqaanay runtii markii ugu horeysay uu arkayna xogaa lama filanayay ku noqotay ama surprise waayo wuxuu ogaa shakhsi aad uga soo horjeeda qaabka ay u socotay siyaasadda Jubaland isla markaana qof taageera dawladda federaalka ee Soomaaliya anigu ra'yi ahaan as a shakhsi wax iska kay bedelaha bayratay ma jirto as a journalist waxaan u leeyahay xaq qofkan doono inaan u tago qofkan doono isla sawiro qofkan doono aan wareysto ra'yigiisa soo dhageysto qaabkaas ayuu adduunku u shaqeeyaa marka waan u sheegay ra'yi ahaan anigu in gabi ahaan Ahmed Madoobe ra'yigiisa iyo qaabka Jubaland aan gabi ahaan ka soo horjeedo laakiin qofka waxa la siiyaa respect kula hadashid وأترهيد وحن كوضا هذا الني مجرى وحيالا public دتك أصحابته ee ku xiran solarportal aan la qaybsan karo iyo waxyaalo kale waayo hadii aad u tagtid oo wax alla wixii aad ku sheekaysateen aan banaanka soo dhigtid cid danba ku aaminaysa ama ku iimaanaysa ama kula sheekaysanaysa ma jirto waxaad noqonaysaa kuwan raqiiska baabarqiiska ah ee codadka duubta ama dadka wax yiraahdo sheega marka looma baahna markii aan ku heshiinay waxyaalaha aan sheegi karo iyo waxyaalaha aan ka hadli karin oo sida qaaska igu sheegay waxaan go'aansaday inaan ka soo dhex saaro 10 su'aalood oo muhiim ah oo aniga si abaaran aan u weydiiyay waxaan u mahadcelinayaa inta barnaamijka galin wasiirka maaliyadda ee Jubaland Cabdirashiid Jire oo shakhsi aan aad isugu dheernahay saaxiib aan nahay isla markaana qaraabo hoosana aan nahay oo ii fududeeyay inaan madaxweynaha marka aan la kulmo aan weydiiyo xaaladda Jubaland iyo gabi ahaan wuxuu ka soo doonay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waayo qof walba dhigta igu dhigaya ayaamahan ugu dambeysay waxaad la socotaan in la yiri Ahmed Madoobe wuxuu u yimid Kenya in lacag fara badan la siiyo la yiraahdo ka tanaasul ka soo dhoof wixii dhan wajigan ka saaray wuxuu kale uu weydiiyay yiri adiga Cabdinaasir ahaan anigu maxaad iga aaminsantahay Jubaland maxaad ka aaminsantahay dadka Soomaalidu maxay iga aaminsan yihiin wajigana ka saaray oo kalama aan leexan waxaan idhi mudane madaxweyne adoo raalli ah waxaan ku aragnaa anagoo dhan Soomaali haddaan nahay dadka qaarkood hadday ahaan lahayn kuwa dawladda kuwa kale in aad tahay qof maaragtay aad ugu dhow Kenya isla markaana dantaada qaasa kaliya wata wajigan ka saaray franka ayaan soo hadalnay si toos ayaan soo hadalnay anigu ma ihi dadka madaxda markay u tagaan u nacamleeya ama maaragtay excitement sheekada way ka gudubtay su'aalihii marka su'aasha ugu horeysa waan isoo fududeynaya waqtiga ka lumin maayo marka si qaybiya fadlan idinkoo mahadsan ha gaaro meesha aan ugu talagalnay su'aasha ugu horeysa aan weydiiyay waxay ahayd oo muhiimka ay 10 su'aalood kamid ahayd waa markii ugu horeysay tan iyo doorashadii Jubaland in aad u soo safarto caasimadda magaalada Nairobi waxa la sheegayaa in aad wada hadalo ay socdaan si aad u fadhiisatid xilkana aad u wareejisid u tanaasulid arrintaas maxaa ka jira waa su'aal meesha taalay qof walbana la doonayay in maaragtay uu weydiiyo ayaamahana baraha bulshada isa soo qabatay jawaabtiisa waxay ahayd waxba kama jiraan cid aan ka wada hadalnay ama aan ka wada hadli doono ma jirto doorashadii iyo natiijadii Jubaland arrintaasna marka ugu dambaysa oo ahay su'aashii ugu muhiimsanayd aan weydiiyay
taasna waan idin soo gudbinaya wuxuu yiri waxba kama jiraan ciidan la hadalna ma jirto ciidan kala hadlayna tabcan siyaasiga hadalku isaga ku yiraahdo literally siday tahay looma qaato waxa laga yaabaa in wax dambe ay soo baxaan wax qariyaan marka anigu hadalku yiri ayaan soo gudbinaya malihi axmed wuxuu yiri 100% waa sax idima lihi aniga taas ayay qaadanaysaa maxaa ku xiga xiriirka idinka iyo federaalka sida lagu soo celin karaa taas watan ugu muhiimsan waayo mar walba qolada muqdisho joogtay federaalka dib soo gaari mayso isla dib soo gaari maayo laakiin dadka Soomaaliyeed ee ku kala nool jubbooyinka iyo kuwa ku nool meelaha kale ee wadanka un bay dhibaatada soo gaaraysa marka su'aashaas aad iyo muhiim u ah xiriirka idin dhaxeeya wuxuu yiri in la wada hadlo in ummadda Soomaaliyeed maaragtay ee dhibaataysan haday ahaan lahayn kuwa koonfurta kuwa Jubbaland loo turo in laga shaqeeyo wanaaga iyo midnimada Soomaaliya hadalkiisu ahaa intaas waa muhiim waa in xoog la saaraa su'aasha saddexaad aan weydiiyay waxay ahayd dad baa waxay ku arkaan xiriirka iyo qaabka aad ula macaamisho Kenya inay tahay mid u eg laba wadan madax banaan arinta maxaa laga oran karaa maxaad ka oran leedahay adiga dad ayaa u arka dad badan ayaa u arka oo aniga aan ka mid ahay xilliga runtan aan u sheegay qaabka uu la diil gareeyo haday aan lahayd ciidamada haday aan lahayd diyaaradihii sanctionka dawladda Soomaaliyeed ee keentay ama la yiri diyaarad toos uma soo bixi karto dad madax ah oo Misir Guuleed iyo Shariif Xasan ay soo raaceen oo kale in laba wadan oo kale adiga aw la diil gareysid ilaan Jubbaland wadan ma ahan waa state ka tirsan wadanka Soomaaliya arintaas maxaad ka dhigi lahayd wuxuu yiri Jubbaland waa wadnaha Soomaaliya marnaba kuma fikrin kuna fikri maayo inay tahay wadan ka madax banaan Soomaaliya Jubbaland waxay xuduud dhuleed iyo mid badeed ay la leedahay Kenya ciidankooda ayaa jooga Jubbaland sida awgeed mar walba in xiriir wanaagsan uu inaga dhaxeeyo waxay muhiim u tahay Soomaaliya iyo Kenya jawaabtiisu ay ahayd waa hadalku igu yiri su'aasha afraad waxaan idhi mowqifkaaga arrimaha badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya waa sidee iyadoo aan ognahay in dhulka Jubbaland ay badda ku taalo saan la socono baddan hadda la isku haysto waxay ku taalaa Soomaaliya qaarad ahaan ama qariidad ahaan haddii loo fiiriyo meesha ay kaga taalo regionka waa Jubba dhulka Jubbaland ayay ku taalaa marka adigu mowqif ahaan inta ka taagan tahay aan yiri su'aashaas runtii waan sugayay in uga jawaabo si toos ah waayo su'aasha cid ka leexan karta haba yaraatee ma jirto haday ahaan lahayd madaxweyne federaal ama mid region haday ahaan lahayd jawaabtiisu waxay ahayd waxaan aaminsanahay in madaxweynaha Soomaaliya ugu horreyn uu yahay Farmaajo dowladda federaalku ay ka mas'uul tahay arrimaha badda iyo xuduudaha inaga iyo Kenya waxa naga dhaxeeya amni iyo la dagaalanka aan kula jirno argagixisada dhiig badan ayay u hureen oo amnigooda uu ku jiro aniga dadka Soomaaliyeed dadka reer Jubbaland mowqifkeena uu cad yahay tallaabo kasta oo la qaado oo dhul Soomaaliyeed 1 kilomitir xataa in la siin karo annaga marnaba naga dhaadhici mayso mana aaminayno arintan waxay u taalaabo yiri aan u dhaafnay marnaba kama hadlin waa arin federaal xuduudka Soomaaliya badda Soomaaliya inaga shaqo aan ku leenahay ma jirto iyadoo la ogyahay inay ku taalo Jubbaland waa arin federaalka waa arin qof kasto Soomaaliya ka dhaxayso waxaana ku raacsinayay yiri marnaba dhici mayso ayuu yiri in taako kamid ah dhulka Soomaaliya hal taako kamid ah dhulka Soomaaliya in wadan daris ah ama wadan kale la siiyo taasna waa mowqif dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Jubbaland aniga shakhsiyan aan qabo ayuu hadalkiisa ku soo xiray dhankaas su'aasha shanaad waxa maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta Soomaaliyeed oo aan ku aragnay in Kenya lagaaga yeeray oo lacag iyo nolol cusub lagu ballan qaaday arinta maxaa ka jira waa tii bilowga iyo daba socota sababta waxaan aragnay 20 milyan baa la siiyay waxa la siiyay 6.6 milyan oo kaga baxay maxaa la yiraahdaa dhankii doorashada waxa la yiri guriga lagaaga dhisaya waxa la yiri safiir baa laga dhigaya waxa la yiri waxyaalo lagu ballan qaaday arintaas maxaa ka jira wajiga ayaan ka saaray wuxuu yiri waa been abuur lacag walba oo adduunka taala haddii la ii ballan qaado marnaba ku bedeli maayo waxaan aaminsanahay oo ah horumarka Soomaaliya iyo kan Jubbaland marka waxyaalaha badan oo aan ka soo qaatay hadaladiisa waxay ahayd Jubbaland kaliya kuma soo usanakeen mar walba wuxuu ka hormarinayay horumarka Soomaaliya iyo Jubbaland marka waxa ma ka dareemayba qof ambitionkiisa marka inuu yahay local aan ahayn oo sidaan ahayn oo doonaya federaalka inuu ama madaxweyne ka noqdo wadanka ama ra'iisul wasaare ka noqdo hadduu u qalmo oo loo doorto dadku ay doonayaan
isagay jirtaa marka wuxuu yiri wax walbo lacag oo adduunka yaala aniga lagu iibsan karo yiri mabda'aygan isma bedelin marnaba dhici mayso waxaan u joogaa horumarka Soomaaliya iyo kan reer Jubbaland ayaan u joogaa yiri su'aasha lixaad ma laga yaabaa haddii cadaadis uu kaga yimaado wadamada dariska waan garanayna waxaan ka wadnaa Kenya iyo Ethiopia iyo kuwa deeqaha bixiya ee USA Europe in ra'yiga uu isbedelo wuxuu yiri daris federaal kuwa deeqaha bixiya kuwa adduunka xukuma hadday isa soo kaashadaan isugu yimaadaan ra'yigayga ku saabsan Jubbaland cid bedeli karta haba yaraatee ma jirto taasna meel iga qor waan ogaan doontaa ayuu yiri طبعا arrintaas waxa iga soo dhaxbaxday siyaasaddu way isbedeshaa cadaadisku isbedelaa waxyaalo badan ayaan ku aragnay South West ayaan ku aragnay Shariif Xasan meel kale ayaan ku aragnay laakiin ma laga yaabaa isaga in siyaasad ahaan la bedeli karo haddii cadaadis Mareykan iyo kaga yimaado wadamada dariska ah ilaan meeshan dhaqaale iyo ciidan qofka hadduu kala laabto waxa dhici karta cadaadis ka xoog weyn marka siyaasiga hadduu marka dambe isbedelana way dhici kartaa laakiin hadda sidoo isaga ku adkaystay ilaan waxaan weydiiyay isaga ayaa sidaas wuxuu ku jawaabay ma dhacaysa ayuu yiri in isbedel haba yaraatee ugu yimaado meel uu doon ha ka yimaado dariska kuwa deeqaha bixiya Mareykanka Europe UN waxba lagu jeedo ayuu yiri su'aasha toddobaad ee muhiimka ahayd oo naga leexin karin waxay ahayd arrimaha gada ka socda maxaad ka dhigi lahayd waa la socotaan qof walbana waa og yahay gobolka gado oo Jubbaland ka tirsan xoogaa xaalkiisa ma fiicna dadka meesha degana waa dad walaalo isla dhashay Jubbaland ka tirsan laakiin siyaasad iyo qabaa'ilaysi iyo waxyaalo aad u fara badan ayaa ku dhex jira marka su'aashaasna waa loo baahnaa in la weydiiyo waxaan aragnay xildhibaanad la yiri ma aadi kartid meeshaas waxaan aragnay xitaa shalay aan soo galay boostigeygii oo isla xalay ka soo degay magaalada Nairobi madaxweyne ku-xigeenka Maxamuud Sayid oo la yiri beled xaawo iman kari maysid oo Mandera hotel lagu hayay oo Ethiopiankana dantooda ay ku jiraan ay ku jirto marka waxaan idhi si toos ah arrimaha gada ka socda maxaad ka dhigi lahayd wuxuu igu jawaabay arrimaha gada hore ayaan u cadeeyay mowqifka Jubbaland nabad ayay u baahan tahay wuxuu waa soo koob marka gada kaliya ma dhihin Jubbaland nabad ayay u baahan tahay uma baahna faragelin iyo dadka oo la isku diro iyadoo uu sii raaciyay mar walba waxa muhiim ah in dadka ay wada hadlaan si nabad wax loogu dhameeyo arinta gado ayuu ka yiri laakiin guud ahaan ma soo carabaabin gado anaa gado weydiiyay laakiin gado waxay ka tirsan tahay saan la socono qof walbana og yahay dhanka iyo waxay ka tirsan tahay Jubbaland sidaas ayuu yiri dhanka kalena saa la socotaan meesha yar ee gado waxaa xuduud la leeyahay Ethiopia interestkeeda ay wadataa marka waxyaabo badan ayaa dhacay xilligii doorashooyinka ay socdeen doorashooyinka la isku dagaalay la socotaan waxaad ogtihiin in diyaarad miigo goday ka soo kacday oo inay soo degto raftii la celiyay waana markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya dhul Soomaaliyeed Ethiopian inay yimaadaan rabisaa sidii looga celiyay haddii laga reebo dagaaladii dhacay 64 77 kii kale markii dambena Baydhabo ka digtaas u noqotay taasna wuxuu u arkay mid ma aragtay proud moment ay u tahay reer Soomaaliya iyo reer Jubbaland guud ahaan su'aasha sideedaad waxaan ugu maqaal ah in laga yaabo doorashooyin cusub inay ka dhacaan Jubbaland arinta maxaa ka jira taa qof walba ogaa waana loo baahnaa in la weydiiyo sababta waxaan maqalnaa doorashooyinkii in federaalku yiraahdeen waa null and void oo macnaheedu ay tahay waxba kama jiraan marka adigu maxaad dhihi lahayd baan yiri odaygii hadda loo yaqaan ayaa tahay maxaad ka dhihi lahayd arintana in doorashooyin cusub ay ka soo socdaan Jubbaland isla markaana ma soo sharxaysa waa su'aal meesha taala jawaabtiisu waxay ahayd Jubbaland doorasho way ka dhacday ma jiri doonto doorasho kale oo ka dhici doonta waxuna ahaa Frank si toos ah isagoo indhaha iga soo eegay wuxuu yiri doorasho ka dhacday kana dhici mayso inkastoo ay xogaa lama filaan ay ku noqotay Mudane Axmed Madoobe ama surprise ay ku noqotay hadalkaas aan weydiiyay waxaan idhi Mudane doorashooyin ayaa inay ka dhacayaan la sheegayaa ma laga yaabaa in aad ka qayb gashid doorashooyinkaas wuxuu yiri ka dhici mayso yiri doorasho Jubbaland hore uga dhacday mana jiri doonto ayuu yiri waxaan ka dareemay xogaa confidence ama shakhsi isquba wuxuu markaa uu ka hadlayay marka ra'yiga kale iyo opinion kale dad kale u talaan waxaan iyaalama ani waxaan ahay un soo gudbiyo ayaan ahay marka dadku waxay yiraahdaan Ingiriiska don't show the messenger aniga message ayaan soo gudbinaya kaliya su'aasha sagaalaad waxaan ma laga yaabaa Jubbaland iyo federaalka inay is soo hor fadhiistaan si loo xaliyo arrimahan jira
ilan arrimaa jira qofkii iska indhatira maanta yidhaahda qoladan xamar joogta ee dowladda soomaaliya iyo waa asxaab oo isla xiriiraan oo waxbaa ka dhexeeya qofkii yidhaahda waxba kama jiraan si kale oo hoos waa la isula xiriiraa hadda waxaan aragnay waxaan ku sugnaa 4 maalmood kahor waxaan ku sugnaa magaalada Kampala anoo jooga waxaa ka jiray shir uu shir gudoomiye u ahaa wasiir Bayle wasiirka maaliyadda waxaa ka qayb galay dhammaan isteedyada oo ku jiro wasiirka maaliyadda ee Jubbaland mudane Cabdisiid oo jari ku jiro ayaa ka qayb galay isla markaana waxa lagu wadaa 22ka bishan soo socota December in Kismaayo ka dhaco marka xiriir waa jira haday hana dhaqaalaha security-ga waxyaalo badan waa jira laakiin heer meeshii ugu sareysay ahayd dawladda xafiiska ugu weyn dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha Jubbaland wax hada xiriir ah oo toos ah ma jiro su'aasha markaan weydiiyay wuxuu ku jawaabay reer Jubbaland mar walba waxay diyaar u yihiin in la wada hadlo isla markaana la soo afjaro arrimaha u dhaxeeya Jubbaland iyo federaalka taa ayaa ahay marka in la soo afjaro la wada hadlo la is arko waxa u dhaxeeya Jubbaland iyo federaalka waqtigiisana waa la gaaray marka su'aasha ugu dambaysa intaan ka falaqoonin kulankan aan la yeeshay Axmed Maxamed Islaam waxay ahayd su'aasha tobanaad ayay ahayd runtii tan waa ku adkaysay 3 jeerna ku soo celiyay su'aashu waxay ahayd ma jirtaa fariinaad u diraysid dawladda federaalka ayaan weydiiyay waayo waxa laga yaabaa hadda 1400 ayaan filayaa 1300 ma qaan inay daawanayaan in ama wasiir ama agaasime ama qoladan in ay maqlaan hadalkayga haduuba gaarayo wuxuu yiri reer Jubbaland fariintan iga gaartay reer Jubbaland mar walba waxay diyaar u yihiin wanaaga iyo horumarka Soomaaliya laba arin marnaba ka tanaasuli mayno yiri laba arin marnaba ka tanaasuli mayno af Soomaalina waa igu sheegay af Ingiriisna waa igu sheegay wuxuu yiri doorashadii iyo natiijadii marka wuxuu yiri Cabdinaasir waxa laga yaabaa af Soomaali inuu fahmin Ingiriis ugu sheegay wuxuu yiri election and the outcome ayuu yiri marka doorashadii iyo natiijadii ka dhacday Jubbaland marnaba negotiable iyo laga wada hadli maayo yiri waa history yiri uu raacay wuxuuna sii raacay yiri election and the outcome ayuu yiri doorashadii ka dhacday Jubbaland iyo wixii ka soo baxay marnaba laga hadli maayo laakiin waxaan diyaar u nahay in meel walba waqti walba aan ku wada hadalno iyadoo aan jirin wax condition ah oo ku xiran marnaba aqbali mayno labada arimood ee doorashada natiijada ee aan soo xusay taas ayuu ku adkaystay marka ra'yi ahaan anigu waa markii ugu horreysay aan la fadhiisto anigu marka ixtiraamaya qofka ama title-kiisa wato dad ayaa maaragtay title-ka isaga u wato hadduu madaxweynaha la doortay u yahay haddaanu ahayn madaxweynaha la doortay kolley dad badan oo reer Jubbaland buu madaxweyne u yahay wuuna u ahaa hadduusan noqonin oo qof kale ama ha ahaado kuwa kale ee la soo doortay u ahaadaan waa iyagay jirtaa aniga waxaan ahay fariin soo gudbiyaha marka anigu waxaan u arkay Axmed Maxamed Islaam waxaan u arkay shakhsi aad isu kalsoon markaasaan u arkay oo confidence aad u weyn leh isla markaana yiri anigu meeshan uma joogo in long term aan u joogo inta badan madaxda saas way yiraahdaan waxay yiraahdaan sanado kadib waan ka degay retire noqonaya waxaas laakiin isagu wada hore loo qoday intaan ka aqriyay way wada hore loo falay ayuu iska ilaalinaya isagana in loo soo maro taasna waxaan ka hadlayo inaan fafasira xataa looma baahno qof walba uu og yahay marka hadda marka su'aashu waxay noqonaysaa waa markii ugu horeysay oo su'aalihiina aan ka weydiiyay uu yimaaday magaalada Nairobi ma laga yaabo Axmed Madoobe wax alla wixii qalbigiisa ku jiray oo dad kala hadlay dadka ugu waaweyn ayaa magaalada ku sugan dad waaweyn baa jooga magaalada magac sheegi maayo ma laga yaabo inuu ii sheegi lahaa tabcan lagama yaabo sababtoo ah waxa laga yaabo inuusan aaminsanayn aniga aaminaad ahaan wuxuu igu arkay oo xogaha surprise lama filaan in noqotay markuu igu arkay hotelka aan ugu tagay oo aan islaanay inkastoo si wanaagsan oo odaynimo ii soo dhaway ii salaamay haddana ma ahayn dadka maaragtay isaga taageera oo maaragtay ilaa iyo hadda aniga Jubbaland maaragtay siyaasadeeda iyo qaabka kay ma taageersani this is the principle marka sawir aniga aan la galay Axmed Madoobe waxba iska bedeli maayo taageerida aan sameeyay taageerada iyo dad ba aad ugu mashquulay waan loo baahan in lagu mashquulo qof aan lagu mashquulo waxba ma aha marka waxaan ka ogaaday meeshan waxa jirta siyaasad way jirtaa arrimo qabiilna way jiraan
qof walba oo aqli leh oo u dhashay Jubbaland ama gedo u dhashay uu kasaya anigu mar walba waad ogtiin waan iska ilaaliyaa qabiil inaan afka la galo ama qabiil aan ka hadlo ama qabiilays aan ka hadlo waxaan ogahay anoo Soomaali oo ka dun weyn oo inaan ka weynahay oo aan ka gudbataa laakiin waxa meesha ku jirta arimaha haddii aan la dhanka federaalka haddii aan la dhanka Jubbaland in arimo qabiil ay jiraan in xoogsi ay jiraan Ethiopia danteeda ay wadato Ethiopia waxay u aragtaa dadkan uu madaxweynaha Jubbaland ee la doortay siday iyaga sheegeen aan saas u cadeeyo dadku ka dhashay dadka Soomaalidu waa in loo dulmaraa qabiil in la sheego is not necessary inay ku nool yihiin Jubbaland inay ku nool yihiin New Frontier meesha la yiraahdo north east of Kenya inay ku nool yihiin dhulka la yiraahdo Soomaali galbeed marka Ethiopia xuduud ahaan meel yar bay gada kala leedahay qof walbana og Jubbaland marka geopolitics waxa la yiraahdo siyaasadda mandiqada marka la yiraahdo in meel 1,000 kilometer u jirta ay faraha la soo gasho marka Ethiopia dan kale iyo jacayl Soomaali ma ahan Kenya dan kale jacayl Soomaali ma ahan waa dantooda qaaska ah iyaga marka ay wataan oo ay leeyihiin qoladan Soomaalidu waa sheekadooda dhan waa qabiil iyo qabiilaysi sida aaweed kuwan dega Soomaali galbeed majority-ga kuwa dega North Frontier North East ee Kenya kuwan Jubbaland dega waa isla tolkii marka dadkan haday hal mar ay corridor ay sameeyaan siyaasadda mandiqadan isbedelayso dadkan tiradooda iyo awoodooda loo maadkaysan karo sida aaweed Oromada meel bay kaga jirtaa kuwan kale la yiraahdo Kikuyu meel bay kaga jiraan jacayl Kenya ay ku qabta ma jirto oo leedahay Soomaali jacaylkan u qaba aawgi ayaan u sameeynaya marka mudane Axmed wuxuu dhaxda kaga soo dhacay geopolitics-ka noocan ah isagoo marka survival-kiisa ama sidoo isaga iyo Jubbaland u badbaadin lahaa waayo isagu wuxuu u arkaa wuxuu leeyahay anigu si toos ayaa la isoo abaaray marka wuxuu leeyahay am in defense ama difaac ayaan ku jira meeshuu ka leeyahay laakiin ma ka muuqday wajigiisa markaan aqriyay qofka marka la fadhiisid oo aad la sheekaysanaysid ma ahan shahaad iyo uma aadan tagin ugu horeyn inuu xil ku siiyo laakiin waxaad eegaysaa body language-kiisa jir hadalkiisa aad eegaysaa qofkan ma qof nervous ah ma qof ma aragtay hadalkiisa dhaafayaan anigu ma aan arkin waana markii ugu horeysay aan arko observation aad u dheer ayaan ku sameeyay waxaan arkay hadalkiisa uu yiri wax walba diyaar baan u ahay meel walba diyaar baan u ahay without condition laakiin waxaan laga hadli karin buu yiri natiijadii iyo doorashadii dhacday ama election and the outcome ayuu isticmaalay hatta ereygaas uu isticmaalay marka tabcan anigu ma dhihi karin maxaad Nairobi u timaaday Nairobi waa imaan jiray waxaan filayaa inuu imaan doono mar kale inuu ku soo laaban doono laakiin waxaan arkaa intuu isaga ii sheegay oo wali marqaati aan u haysto marqaati ila fadhiyo hadii loo baahdo in sheekada ah Axmed Maxamed Islaam wuxuu u yimid magaalada Nairobi in xukunkii uu wareejiyo isla markaana 100 milyan la siiyo taas afkiisan ka haya waxba kama jiraan dhun laga soo qaadi maayo yiri markay shaqadan u imaad meeshii dhamaatan waxaan ku laabanayaa ayuu yiri magaalada Kismaayo waxa kale oo jira in hadii waqtiga uu yimaado isaga kulley election haduu dhacayo wadanka doorashada dhacayso kan federaalka ayaa soo horeynaya isaga hadii loo saxiixo cidii u saxiixin lahayd international community ama Soomaali federaalka u saxiixan isaga waqti badan ayuu sii joogaya laakiin hadda walwalka ugu weyn wuxuu yahay in dadkan ku nool gada ee walaalaha ah ay nabad ku wada noolaadaan oo xaalkoodu saas u ahaado laakiin ani ma arkin nin xukun inuu dhiibo rabo ama ka tanaasulo ama maaragtay Istanbul guri looga dhiso ama Nairobi guri looga dhiso oo 100 milyan la siiyo ilama ekeen aniga Axmed Madow waa jabhad ma ahan siyaasad ku soo galay oo maaragtay intuu jaamacad Ingiriis kaga soo baxay wadanka yimaaday oo maaragtay ma ahan waa nin jabhada wuxuu yiri waxaan sameeynay waxaan bedelnay lama arka miyaa ayuu yiri oo ku adkaysay Kismaayo ma tagtaan ma tayn Kismaayo wali ma la igu casuumin Kismaayo mana tagin laakiin wuxuu yiri Kismaayo qof basu u arko ayuu arkaa wax isbedel ah hadii aan ka sameyn insha maxalina laakiin waxaan diyaar u nahay mar walba danta Soomaaliya waxa ku jira oo qof walba Soomaali uu doonay wixii inta ka banaan wuxuu yiri qofkii la yimaada wuxuu la yimaada ayaan arkaynaa marka intaas ayay ahayd anigu waxaan ahaa fareen gudbiye markuu hadalka uu dhameeyay oo aan isa salaanay meesha ayaa sawir baa ku jira marka meesha sawirka aanu isa salaamayno ayaan rabaa macna inaan ka bixiyo marka sawirka inuu qoslayno sawirka ma ahayn qosl static ma ahayn wuxuu ahaa natural qosl ayuu ahaa wuxuuna ku yimid waxaan idhi sawirkan Facebook baan soo gelinay caawa
waxaan ku qorayaa baan idhi with sayid axmed in nairobi maya ayuu yidhi ku qori maysid haye waxaan idhi adiga dalba maxaan ku qoraa baan idhi de waxaad ku qoraysaa uu yidhi waxaan nairobi kula kulmay madaxweynaha jubbaland his excellent axmed maxamed islaam ayaad ku qoraysaa buu yidhi marka nin oday ah oo gurigiisii meeshuu deganaa igu soo dhaweeyey koob galaas biyaan ka soo cabay intaas ayaan ogahay koob galaas biya siiyey isoo dhaweeyey hal sac ila fadhiyey wuxuu iga codsaday maxaan u diidayaa marka opinionka iyo ra'yigaaga haddii axmed madoobe aad u aqoonsatay madaxweynaha jubbaland aday ku jirtaa it's not my business anigu weriyaan ahay 14 sano 15 sano sanadkan ah aan weri aha waxaan soo gudbiyaa haddii aad ku faraxsan tahay oo aad tahay qolada nabad iyo nolol adigay ku jirtaa inaan la kulmo axmed madoobe aan isla sawiro haddii aad ka xun tahay axmed madoobe inaan kula kulmo nairobi qolada nabad iyo nolol igay jirtaa haddii ay dhibaato weyn ku tahay aniga it doesn't bother me waxaan la kulmayaa Mila Zenawi hadduu nool yahay waxaan la kulmayaa Uhuru Kenyatta haddaan fursad u helo waxaan la kulmayaa qofkaan doonaya la kulmayaa cidna uma shaqeeyo cidna ma shari uma shaqeeyo qofkaan la kulmayo iyo qofkaan la sheekaysanayo taas qof walba inuu ogaadaa tan kale ugu muhiimsan ugu dambaysana waxay noqonaysaa I think qofka as long as uu leeyahay waxaan u baahanahay negotiation aan u baahanahay aan wada hadalna aan wada fadhiisano condition kalena meesha u yimaado u malayn maayo inay jiray si lagu wada hadlo maxaa dhacaya stagnation ayaa dhacay wax walba way istaagayaan hadday istaagaan dhibka ugu weyn aniga waxaan ogahay wuxuu soo gaarayaa ummadda Soomaaliyeed kuwa jooga xuduudka ugu dambeeya ee Kenya iyo kuwa jooga xuduudka ugu dambeeya ee Ethiopia ayuu soo gaaraya anigu mowqifkayga mar walba waa taagay meel ayuu taagan yahay aniga waxaan taageersanahay Soomaalinimada meesha ay ka timaado qofka Soomaaliya ku nool New Frontierka North East Kenya ku nool kan ku nool Jubbaland kan ku nool meesha ugu dambeysay Soomaaliya mar walba Soomaalinimada ayaan taageersanahay dawladda haday timaado waan taageeraya hadduu isaga noqdo hadduu qof kale noqdo waan taageeraya hadduu nagu xumaado ra'yigayga waan ka gudbsanaya haddii aan arko inay wax isbedelayaan waan ka aamusayaa marnaba igu arki maysid afnin shalay aan ku ammaan ina maanta ku caayo caayida ugu fiican ee siyaasi lagu sameeyo waa in loo aamusaa afka laga qabsada waa loo aamusaa taas iga barta aniga waxba lama yiraahdo laga dareemi maayo waxyaalo aan qurux badnayn ba ayaamahan damaan aragnay idinkana waa dareenteen laakiin tan ugu wanaagsan waa in afka la qabsadaa oo la yiraahdaa alla ilahay it's not even worth it in arintan laga hadlo sababtoo ah macnaha bayraatay yeelan mayso muhiimaddu waxay tahay Soomaaliya mowqifkii aan ka taagnaa oo ah Ethiopia iyo dadkan dariskana ah dan oo Soomaali jecelkeeda uma soo socdaan waxay u joogaan kaliya dantooda iyo baddeena iyo qeyraadkeena iyo wax walba si ay u dhixi lahaayeen marka anigu waxaan leeyahay caaw waxaan ku biiray qolooyinkii Jubbaland iyo waxaan ku biiray maya cid aan ku biiray mal ani mar walba waxaan la joogaa aan ku biiraa Soomaaliya dan Soomaali meesha joogto wixii ka soo harana waxay tahay wax lagu heshiin karo negotiation lagu sameyn karo waa idin salaamaya wabillahi tawfiiq wixii akhbaarada ku saabsan arrimaha Jubbaland Soomaaliya iyo guud ahaan mandiqada Solar Portal subscribe ka dhiga YouTube-ka mar walba soo idin ku soo dhaco wixii idin dhaafo waa idin salaamay waxaan ka salaamaya magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya anigoo ah Cabdinaasir Ismaaciil waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh